السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada janalka qaalin media haddaad tahay daawado cusub ee rukumo kanaalka oo subscribe-ta ku dhufo haddii aad hore ugu jirtana like-ta iyo comment iyo share-ka la dhac aldeeq media oo maanta idin soo bandhigayso arrimaha ka taagan siyaasadda Asia gaar ahaan Pakistan sidaad la socotaan Pakistan maalmahan xaalado xasaasi ah ayaa ka socdo sababtoo ah mucaaradka ayaa waxay doonayaan codka aqlabiyadda ah inay kala noqdaan ra'iisul wasaare Imran Khan iyagoo doonaya inay xilka ka xayuubiyaan baarlamaanka fadhi uu yeeshay maalmaha dhaweeyay hadda la soo dhaafay ayaa codka waxay dooneen inay kaga qaadaan aqlabiyadiisa ra'iisul wasaare prime minister madaxweynenimada kalsoonida ay kala noqdaan sababta taa keentana waxay tahay in uu ra'iisul wasaaraha Mareykanka danihiisa uu ka soo horjeestay sidaad la socotaan ra'iisul wasaare Imran Khan waxaa dhacday Mareykanka ayaa wuxuu ka codsaday in uu ka soo horjeesto Putin muu fulin awaamirta Mareykanka inuu ka soo horjeesto Putin laakiin wuxuu noqday dhaxdhaxaad Putinna dagaalkiisa kuma waafaqan Ukraine sidoo kalena Mareykanka danihiisa uma yeerno oo Putin kama soo horjeesan sida aaweeda Mareykanka cadow ayuu wuxuu u arkay Pakistan mar walba Mareykanku wuxuu jecel yahay dowladaha islaamka ah kuwa uu ku shaqeysanayo ama danihiisa u fulinaya halka ra'iisul wasaare Imran Khan uu ka arkay Mareykanka in uusan u soo jeedin sababtoo ah ra'iisul wasaarahan waa ra'iisul wasaaraha ugu horeeyay mar walba ilaaliya difaaca horumarka Pakistan iyo sidoo kale dhaqankeeda iyo diinteeda islaamka ah Mareykankana taa ma doonayo arrintaa uu ka soo horjeedaa sida aaweeda wuxuu ku noqday mucaarad aad iyo aad u daran kuwani waa ra'iisul wasaareyaashii hore ee soo maray dalka Pakistan sida arkaysaan Benazir Bhutto waxay haysay xilka 1988 ilaa 90 oo macnaheedu ay tahay 2 sano oo kaliya kadibna waxaa ku dhacay waad ogeedeen sidoo kale Nawaz Sharif ayaa asagana sidoo kale soo maray haddana markii awaamirta qaar uu qaadan waayay asagana xilka waa laga casilay sidoo kale Benazir Bhutto ayaa soo martay iyadana mar labaad 93 ilaa 96 sidaa darteed waxaa arkaysaan dalkan Pakistan inuusan degnaansho lahayn siyaasadiisa mar walbana uu ku ciyaarayo waddanka weyn ee la yiraahdo Mareykanka Imran Khan dhab ahaantii warka ka soo baxay baarlamaanka Pakistan ee lagaga soo horjeedo inuu xilka sii hayo ayuu jawaab ka bixiyay diidmo cad ah ayuu diiday inuu aqbalo maxaa la oran karaa sababaha keentay in ay mucaaradka ee maanta ay ka soo horjeestaan waati aan hor u soo sheegay kista kaliya uu dhaxdhaxaad noqday ayaa laga soo horjeedaa marka Imran Khan sirar fara badan buu hayaa uu yiraahdo Mareykanka wax walba uu doonayo waan u sameynay wax walba uu dalkeena ka doonayo waan u ogolaanay isla markaana bedelkeedana ma siinayo Mareykanka Pakistan dhaqaalaha kuma taageero sida uu adag marka laga reebo dadkiisa gaarka ah ee sirbaarayaasha ee Mareykanka ugu jiro ee Pakistan degan mooye Pakistan ahaan ma dhiso muxuu ahaa kaabeeda dhaqaala ma hagaajiyo sidoo kalena wuxuu taageeraa Pakistan cadowgeeda ee dalka Hindiya ah ayuu taageero buuxda siiyaa markaana hadaladiisa khudbadaha uu ka hadlayay ninkan la yiraahdo Imran Khan waxaa ka mid ah in uusan Mareykanka qabsan Hindiya oo iyadana dhaxdhaxaad ahayd sidoo kale calaaqaad wanaagsan leh dalka Ruushka laakiin uu Pakistan soo aaday maadaama ay islaam tahay taana gaalada dhan way ka wada siman yihiin sidoo kale wuxuu diiday arrimaha ka mid ah oran kale Imran Khan in uu muxuu ahaa Mareykanka uu ka soo horjeesto ra'iisul wasaarnimadiisa inuu xilka ka qaadan rabo in Mareykanka ay ka sameystaan wax loo yaqaan space military ama qaacida askariya dalkiisa kadibna uu ka diiday arrimahaas iyo dhowr markuu isku daro waxa la oran karaa Imran Khan sababaha ayaa dhibka u keenay marka waxaan sameeynaa Imran Khan hadaladiisa ugu dambeeyay waxaa ka mid ah uu hadlay TV-ga uu ka hadlay daraad in uu yiraahday waan ka soo horjeedaa wax kasto oo mucaaradka ay wadaan gaar ahaan danaha Mareykanka aan fulin waayeen in lagu soo weeraro waxaan aqbalayaa haba yaraatee
ma aha ayuu Cimraan Khan u taagan yahay marka bal aan isla eegno video oo hadalka kaga hadlayo Bismillahir Rahmanir Rahim ayuu leeyahay وإياك نستعين हम सिर्फ तेरे से मदद मांग मेरे पाकिस्तानियों आज मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है wuxuu yiraahday मुस्तकबिल के लिए walaalahayga और Pakistan मैंने ये maanta फैसला waxaan किया doonayaa कि ये मैं arrin लाइव करूंगा ये inaan ka रिकॉर्डेड hadlo नहीं है ये आपके पास लाइव जाएगी बात waliba live इसकी ay वजह soo galo oo si toos ah इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक उस अंग्रेजी में कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट पे है एक फैसला कुन वक्त पे है wuxuu leeyahay maxaa yeelay Pakistan maanta waxay ku दो jirtaa रास्ते हमारे marxalad सामने हैं aad u कौन सा adag रास्ता ee go'aan ay qaadan lahayd लेकिन मैं चाहता हूं कि go'aankaas laba dhinac buu noqonayaa जो अपनी आपसे दिल की आज बातें करूंगा उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरी तरह का आदमी पॉलिटिक्स में आया क्यों क्योंकि आप अगर पॉलिटिशियंस की जिंदगी देखें तो उनको किसी को भी कोई पॉलिटिक्स से पहले नहीं जानता उनकी कोई बड़े कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई चीज अचीव भी किया hadalkiisa waad maqlaysaan ra'iisul wasaaraha लेकिन उन्होंने waa hadal cad weeyaan saad u jeedaan wuxuu leeyahay siyaasiyiinta badan aadanahooda ayay raacaan khudbaddan way dheer tahay sidoo kale ra'iisul wasaaraha wuxuu kaga hadlayaa sidoo sababta ugu soo horjeedo in mucaaradkaadu qaadaan ujeedada maraykanka iyo sidoo kale wuxuu kaga hadlayaa maraykanka inuu dhowr jeer uu yidhaahday danahaaga ka shaqaynaya arrimaha jeceshaha wax walba Pakistan waan ku fulinayaa laakiin anaga aan ka faa'iidin oo laakiin maraykanka in ay Pakistan ka faa'iido u ogolaan laakiin inuu ku shaqaysto kaliya doonaya tan kale khudbadda halka ugu dambaysa sidoo kale wuxuu ku sheegi doonaa hadalka imika uu ku hadlayo wasaaraha waan koobaya waxaa ka mid ah sidoo kale in uu khudbadiisa xaq ugu dambaysa uu ku sheegay ra'iisul wasaaraha in haddii xilkan laga qaado xataa uu ka dilo maraykanka uu dhaafeen uu dili doono sidoo kalena xaaskiisa dili doono taasna maraykanku waa ogtihiin wuxuu ku sameeyey arrin la mid ah dowladda Ciraaq markuu burburinayay marka maraykanka mar walba wuxuu jecel yahay cid asaga taabacsan cid ka soo horjeedo mar walba maraykanka ma aqbalo arrinkaasna waa arrimaha maraykanka uu ku dheereeyo weeyaan aad aragteen kasaan dhowr jaraa'id baa tusay dhammaantooda Cimraan Khan ka hadlayso jariidadan waxaa la Iran baa iyadan la yiraahdaa Cimraan Khan يحتج لدى سفارة أمريكا على تدخلها في شؤون البلاد ومعنتي هراء شلي هات وحكاها اللي وصدوا كلا حتى وكبحي آدمه إن سفارة أمريكا كأرميس دلكيس جاركا شؤون باكستان جاركا لا سفر جالس مركز ده أول داو ديار haddii aad ka hesheen akhbaartan ee ku saabsan Cimraan Khan xaaladiisa ee adag tahay bal u duceeya waxaan u maleynayaa sida ka muuqato waa madaxweyne ee difaacaya dalkiisa iyo danaha dalkiisa difaacaya ruush maalinta uu la kulmayay xilligii Putin oo is arkayeen oo mucaaraday in uu ka soo horjeesto Putin oo dhaxdhaxaad noqday Putin wuxuu ku leeyahay inuu shidaal oo qiimo raqiis ah kaga soo qaatay wuxuu u baahan yahay laakiin Mareykan intaas kama helay asagana danta dalkiisa ayuu fiirinayaa ra'iisul wasaaraha Cimraan Khan wax lagu eedeeyana malaha sidaa darteeda waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka meel walba ay joogaan in ay ra'iisul wasaarahan u duceeyaan in Ilaahay uu garab siiyo inqilaabka lagu wadan uu ka badbaado sida madaxweyne Erdogan oo kale haddii aad rabtaan videoga hadalkiisa oo dhameystiran oo fasiran waad iga codsan kartaan xagga hoose komanada ka soo bixiya like ka saara share gareynta iyo subscribe-ka haddaad soo codsataan ee dad fara badan soo codsadaan in video Cimraan Khan oo turjuman oo af Soomaali ah oo dhameystiran min bidaaya iyo nihaaya inaan idin soo sameeyo codsiga komanada xagga hoose kaga taga idinkoo mahadsan haddana sidaan ayaan idinku dhaafayaa war dheer ma sii geli karayo wararka dambe ee soo socda aan soo dhigi doono ayaan iyadoo faahfaahsan Cimraan Khan xaaladiisa halkay maraysan idin socodsiinaya waa kanalka Qalin Media oo idin leh mac salaama sidoo kale Ramadan Mubarak Ilaahay acmaasheena hanaga aqbalo maadaama aan ku jirno bil barakeysan ee soon ah ee Ramadan ah aad iyo aad ayaad dhammaantiina u mahadsantihiin